maxaad ka ogtahay xogta weerarkii xalay lagu qaaday ee shirqoolka ahaa Luzina? Sidoo kale ma ogtahay Luzina in aysan ka warqabin in xalfadda Malabo in iyada lagu gadgaadayay. Taa beddelkeeda kaamirada qarsoon waxay soo qabatay in Luzina loo sheegay in ay feejignaato. Sidoo kale sababta ay u maaweysay Sumay Qurux xalfadda Malabo ma isweydiisay. Idan xog ayaan kaaga hayaa. Soo dhawaad haddana ku subtay follow, like, share, comment. Fikirkaana waa inuu muhiim. waayahay arrinta waa xasaasi. Arrinta meel xun ayay maraysaa ee gabdhahani meel xun ayay ka maraysaa. Dagaalka xalay dhacay waxaa sabab u ah dagaalka ka dhaxeeyay hurgufka ahaa ee Sumay Qurux iyo Luzina. Dagaalkooda hadda maysan bilaawanin, waa mid aniga aan kasoo hadlay sanadkii hadda tagay oo Luzina ay ku caynaysay Sumay Qurux in xitaa ilmo iyada kasoo xaaqday cadeymihiisa TikTok yaalo aniga page-kayga hadda dib u baartid waad ka helaysaa. In hurguf ba'an oo ka dhaxeeyay dagaal aan waxba la isku reeban oo hadal ah oo qofba qofkii kale xogta uu ku hayo uu banaanka keenayay ayaa ka dhaxaysay. Labadooda marka Janice ay isku raadinayeen. Ugu dambeyn Janice waxay heshay Luzina waxayna ka faa'iideystay Sumay Qurux oo laba ciidan oo midna Prime Ministerka staafkiisa ahaa iyo midna taliyaha afyeenka taliyaha booliska gacanyariisa ahaa. Dagaalkaasi waxa sida uu u dhacay Luzina xogta waxay u haysaa weliba cadeemo muuqaal ayay haysaa. Waa tan keentay sababta loo xiray. Iyadoo intaas gadgaadaysay Janice ay ku raadinaysay waxaa la diidanaa in Luzina ay hadalkani public ay ku sheegto taasi oo loo xiray markii ugu horeysaba. Laakiin Luzina waxay soo fuushay qolka Daahir Cali Sow hadal bay isdhaafsadeen qofkii daawadayba waxay sheegtay in ay sheegi doonto laakiin iyadoo Soomaali joogta aysan ku sheegayna ee nafsadeeda ay u baqayso. Laakiin taa beddelkeeda Daahir Cali Sow ayaa ballan u qaaday in aysan cidna wax yeeli karin. Laakiin iyadu waxay sheegtay horta waa inaan baxaa kadibna markii aan soo sheego aan Soomaali aan imaado xitaa hal xira iyo tirsi waa iyada hadalka ay u sheegtay. Arrintaas iyadoo jirto Sumay Qurux arooska Malabo markuu soo dhawaaday Sumay Qurux arooska way kasoo qayb gali weysay maadaama arrinta la kashifay. Arrimaheedii qarsoonaa oo la kashifay. Arrinta hadda ma bilaawnin, okay? Waxay ahayd laascaanood markii laga soo laabtay. Xalfadii laascaanood markii laga soo laabtay ayay ahayd. waayahay Sumay ujeedaan waxaa ka muuqdo jirdil. Haddana ma ahayn, okay? Sumay Qurux maadaama Luzina ay kasoo qayb galaysay maysan kasoo qayb galin. Balse taa beddelkeeda waxaa kasoo qayb galeen gabdho oo markaasi isku heeb ah Sumay Qurux. Ogaaw dagaalka labadan gabdhood ma ahayn mid oo markaasi iyada ay